ururka dhalinyarada wada jir ayaa munaasabad ballaaran oo ku soo dhaweynayaan barasaabka cusub ee gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax kuna sii sagootiyay barasaabkii hore gobolka Hawd Axmed Cigayare maanta ku qabtay magaalada Balligubadle xarunta gobolka Hawd xafladan oo ahayd misi ballaaran loo soo agaasimay ayaa waxa hadal soo dhaweyn iyo sagooti space ugu jira ka jeediyay xubna kamid ah ururka dhalinyarada wada jir boorkeena ka muuqataba sagootin soo dhaweyn waxaan aad ugu mahad celinayaa gudoomiyaha hore gobolka sida qiimaha loo nolol shaqeeyay muddadii sanadkaaydu joogay waxaan isagana ka rajeynayaa gudoomiyaha cusub inuu isaguna dardar cusub iyo la iman doono sidii Axmed Cigayare kale oo u hanan doono qulubta bulshada reer Balligubadle iyo gobolka Hawd aad baan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha Axmed Cigayare waxaan leenahay jasaakumullahu khayr allaha ka abaal mariyo intaad gobolka Hawd u qabatay waanan ku haynaa abaalka barisaabka kalena waan soo dhaweynayaa Axmed Yaasiin Maxamed Faarax waxaan ku leeyahay soo dhawow gobolku waa gobolkaagii dadku waa dadkaagii gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay Axmed Cigayare gobolka wuxuu ka soo qabtay mar walba waynu xusaynaa shalana waynu xusnay waxaanu soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo niyad samiyo wada shaqayn ku soo dhaweynaynaa barasaabka cusub Axmed Yaasiin Maxamed Faarax Axmed Yaasiin oo Balligubadle waxay u heelan tahay oo ay doonayaan in jecel yihiin wax qabad waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen xogayaha dawladda hoose ee degmada Balligubadle Saalax Maxamed Idris maayir ku-xigeenka degmada Balligubadle Cabdirasaaq Xasan Aadan iyo maayirka degmada Balligubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine iyo xubno kale waxayna dhamaantood soo dhaweeyeen barasaabka cusub ee gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax waxayna sii sagootiyeen barasaabkii hore ee gobolka Hawd Axmed Cigayare waxaan la soo dhawo Axmed Cigayare waxaan leeyahay nagama tagin wada la joogtaa wada jir inaan ku shaqeyno magaca ay ka turjumayaan ururka magacooda wax ku turjumayo inaan ku wada shaqeynaa muhiim ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa barisaabkeenii hore wax qabadkiisa shalana waa la sheegay maantana waynu sheegaynaa uu ku mahadsan yahay wixii uu qabtay wuxuu ku guda jiray iyo wixii uu qorshaysayba jasaakumullahu khayr baan leenahay barisaabkeena cusub Axmed Yaasiin waxaan qabaa inuu dhalinyaro yahay wax badan waynu ka rajeynayo oo sheegnay gabagabadii waxa halkaasi hadal mahadnaqa ka jeediyay barasaabkii hore ee gobolka Hawd Axmed Cigayare iyo barasaabka cusub ee gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax waxaan aad ugu mahad celinayaa dhalinyarta wada jir oo runtii intii aan halka joogay wax muuqda ila qabtay garabkayga taagnaa waxaanan ilaaweynin talooyinkii ee aad ila garab taagnaydeen waxaan rajeynayaa barasaabka Axmed Yaasiin inuu sida talooyinkan idinka qaadan jiray inuu isaguna aad u sii dootaan inaad la shaqeyn doontaan insha Allah taala insha Allah waxaan rajeynayaa kulli dhalinyarada la tilmaami maayo dhalinyaradan kamid ah dadka sida ugu dhow aad u wada shaqeysaan inaan noqon doono haddii Allah ilaaho mas'uuliyiinta sida dhow la shaqeyn noqon doonaan aniguna haddii Allah ilaaho marka Axmed Cigayarena kulli waa oday naga tirsan wixii khibrada iyo wixii aqoon gobolka u leeyahay insha Allah haddii Allah ilaaho waan u nala joogaa inaga tagayo annaguna haddii Allah ilaaho waan u daba joognaa wixii taliya tusaale waan ka qaadanaynaa haddii Allah ilaaho inkana waxaan rajeynayaa wada shaqeyn wanaagsan kulamo badan oo kala aan qabsan doonaa insha Allah aan isugu iman doonaa dhalinyaraduna waxa weeyaan waa garbaha lagu duulo dhalinyaradu haddayna gobolka iyo dadka mas'uulada ayna la shaqeyn oo mas'uuliyadii dhalinyaradu ayna isku xidhnaan wax hor u socdo imanaya ma jiro ka inkana waxaan rajeynayaa guul محمد شعير وأحمد عبد النجيب داير عثمان تيفي قرنك سوماليلاند مقالة Balligubadle